wasiirka kaliya aan kheyre daacadda u ahayn xubnihiisa golaha wasiirada oo la shaaciyay hadda golaha wasiirada Soomaaliya waxay tiraaheen ka kooban yihiin ku dhawaad 70 wasiir marka la isku daro wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo waliba wasiir dawlayaasha xukuumadda kheyre oo marar badan isbedel badan lagu sameeyay inta badan oo kamid ah wasiirada xilka laga qaaday iyo waliba kuwa iscasilay waxay xilalkooda ku waayeen diidmada iyo inay daacad u noqdaan ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Kheyre wasiirada diiday inay daacad u noqdaan ama u nacamleeyaan Xasan Cali Kheyre ee xilalka laga qaaday ayaa waxa kamid ah Yuusuf Garaad Cumar Cabdi Faarax Juxe Qatre Axmed Ducaale Cabdi Fataax Ibraahim Geesay iyo waliba Sheekh Daahir Maxamuud Gelle oo ahaa wasiirkii warfaafinta ee ugu dambeeyay hadda golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxa ku jira hal wasiir oo akademiyada ama daacad aan u ahayn xubnaha wasiirada Xasan Cali Kheyre kaas oo laga baqdin qaba in qudus xilka wasiirnimada uu waayo Axmed Ciise Cawad oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya horan u ahaa safiirka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa la sheegay inuu yahay wasiirka kaliya aan loola dhaqmin sida wasiirada kale xogtan ay heshay shabakada wararka channelkeena ayaa ogaatay in wasiirka arrimaha dibadda uusan kamid ahayn wasiirada inta badan xaadira xafiiska iyo waliba kulmada golaha wasiirada sidoo kale waxa uu jibiyay amaro badan oo soo saaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuuna kamid yahay wasiirka kaliya ay aanan inta badan qaadan amarada ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya amarada uu diiday qaadashadooda ayaa waxa kamid ah in ra'iisul wasaaruhu uu ku wargeliyay markii uu doonayo in uu wareysi bixiyo ama uu soo saaro war-saxaafadeed lagula taliyay inuu la soo xiriiro ra'iisul wasaaraha kuna wargeliyo sidoo kale Axmed Ciise Cawad ayaa iska diiday inuu ka qayb qaato ololaha ka qayb ah golaha wasiirada Soomaaliya ee lagu amaanayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sida ay warbaahintu ay ogaatay ama xogta aan helay channelkeena waxyaabaha kale ee aan ogaanay ayaa waxa kamid ah in wasiir Cawad uu shirka golaha wasiirada ka sheegay qaladaadka xukuumadda taas oo ah qodob aysan wasiirada kale ku dhiiran karin ka hadalka waxaana hore xilalkooda ku waayay Yuusuf Garaad oo wasiirka arrimaha dibadda wasiir Juxa oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha iyo waliba Daahir Maxamuud Gelle oo ahaa wasiirkii warfaafinta Soomaaliya dadka la hadalnaa ayaa waxay noo sheegeen in wasiirada sida hoose ugu xiran yahay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya dadka la hadalnaa ayaa waxay noo sheegeen in wasiirka arrimaha dibadda wasiir Cawad in soo hoose uu xiriir toos ah u leeyahay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya go'aanada u gaarkaan halka uu ka qaato isagoon wax door ah ku lahayn dhaqdhaqaaqyada xafiiska ra'iisul wasaaraha taas oo keentay inuu ka madax banaanaado shaqada ra'iisul wasaaraha iyo waliba amarada joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxaya